dadka badankoodu waxay ka yimaadeen meelo aad u fog sida Libooya iyo Diinsoor waa meel aad u dheer adoono hadda magaalada aan ku qiyaasi karo ilaa halkan ba waxaan u maleynayaa inay tahay ilaa halkan ilaa Manchester ilaa halkan ilaa Manchester haddaad soo lugaysid ama way ka dheer tahay baan qabaa aad iyo aad u dheer markaad soo lugaysid dadka badankoodu waxay ku sheegeen waxaan soo lugaynay 20 cisho 15 cisho 10 cisho dadkii ugu fiicnaa ee aan arkay oo aan dhahay alxamdulillah waxa ahayn gabdho yar yar oo dadka meesha u ekaa dadka meesha iiga muuqday kuwa ugu quruxda badnaa oo garbasaartoodu ama maradoodu aysan aad u iska badnayn waxa ugu dheen 4 cisho ayaanu soo lugayn soo soconay waxaan ku risay ku dhacday idinku 4 cisho kaliya soo socoteen waxay dhaheen gaari baanu soo qaadanay laakiinse meesha u soo socdeen ma aysan ka wareyn gabdhaha yar yari waxay face gareeyaan dangerous-ka adduunka ugu faraha badan tremendous danger so much sababtoo ah ninka madowga ah kan Soomaaliga ah kan ciyaala suuqa ah will come after them. It's an unfortunate thing. It's a really unfortunate thing. oo gabdhaha yararka maalin kasta waxa ka daba ereenaya rag oo kufsanaya oo wax daran ka raadinaya tan kale hooyooyinka waxa arkaysaa hooyo kugu leh 7 ciyaaran la soo baxay hal baa ay soo haray ma waxaad ku tiraahdaa hooyo Ilaahay u naxariisto ma la ooydaa ma maxaad samaysaa talada dhan ayaa faraha ka baxaysa waxaad samaysna wad garan waayaysaa caasimadeennii baan ku sii xijiyay Muqdisho caasimadii Soomaaliya sida dhamaantiin ka warayno waa magaalo burbursan marmarka qaarkood anigu waan diidi jiray inaan daawado waxyaalaha qaarkood oo aan iska dhaga turaan dhaho may Muqdisho waa caasimadeedii ma aha Warto waa magaalo fiican laakiin sawirradaan arki jiray anigu weliga Muqdisho ma tagin sida u taalana weliga ma arkin laakiin hooyaday iyo reerkayaga waxay tusi jireen sawirro Muqdisho laga keenay iyo videos waxay ugu dhigi jireen halkan waa tan meeshan waa halkan meeshan aan ku caweynaa waa kan ana habeenkii waxaan ku fakari jiray ilaahow anaan dhiman Muqdisho maalinigii aan meesha hooyaday tagi jirtay ku wareegay laakiinse waa la isaga daba yimid taas oo markaan tagay waxaan idhi ilaahow sida ugu dhaqsaha badan iga saaran oo nabad qaba sababtoo ah ma ahayn waxaan filinay dadkii baan ay soconay dhibaatadana waxa keentay qabyaaladana waxa badbaadin kara dumarka Soomaaliyeed dumarow qabiil ma lihid haddaad ismoodeen aad qabiil leedihiin qabiil ma lihid sababtoo ah reerna waad ka dhalataa reerna waad u dhaxdaa adaa badbaadin kara idinka badbaadin kara dumarka Soomaaliyeed oo gabdhaha Soomaaliyeed idinka badbaadin kara ummadeena dhibaataysan idinkaana la idinka baahan inaad kacdaan ragga yagi aniguna aan isku dayay anagu waa nala ka waayay wax faa'iido runtii inaanu dhalinyaradu kacno mooyaane oo aad idinkuna hooyooyin ahaan caawisaan mooyaane tan kalena markii aan caasimadii Soomaaliyeed tagay dadka dhadhaab jooga iyo dadka xaggan jooga way kala fiican yihiin sababtoo dadka Muqdisho jooga waxay u yimaadeen dad walaalahooda oo Soomaaliyeed dhulka ay ka soo qaxeen waxay soo mareen dhabooyin waa dhabooyinkii ay magaalooyinka Soomaaliya isku xiri jireen soo dhabooyinka markay soo mareen waxa laga yaabaa qaarkood inay dad Soomaaliya oo muslimiin oo dariiqa iska maray ay hore u soo qaadeen oo ay safarkii faraha badnaa ka baajiyeen qaarkood way soo safreen laakiin Muqdisho markay soo gaadhaan waa dad Soomaaliyeed ba soo dhaweynay oo dhalinyaro Soomaaliyeed haddaad Muqdisho aragtid dhalinta Soomaaliyeed weeye waxa ummadda Soomaaliyeed dhinac taagaya oo wax siinaya waxaan kaloo aad iyo aad u rabaa inaan ku dhaho aad iyo aad bay u mahadsan yihiin dhalintii Soomaaliyeed ma habeen iyo maalin nala fariisan waayay nala ururiyay nala soo tuugsaday dariiqada London hooyooyin waxa jiray igana dariiqooda ka soo tuugsaday oo yiri anna ma fadhiyo waa kacaya waxaan raadinaya laakiin dhalinyaro ayaa jiray habeen iyo maalin aan fadhiisan oo habeen iyo maalin waqtigoodii iyo maalkooda u horay inay isu taagaan oo badbaadiyaan ummadda Soomaaliyeed aad iyo aad baa u mahadsantihiin idin kale aantiina ummadda Soomaaliyeed waxa la siiyay may gaadhin maxaanu geynay annaga 10,000 baanu soo tuugnay ama aan dariiqada London ka soo ururinay 10,000 aanu soo ururinay horta waxaan tagay dhadhaab waxaan idhi okay intanu family misan wax siin karnaa 240 family ayaan soo qaaday 240 family waxa ahayn kuwii ugu dambeeyay hadda soo galay oo kuwa dhamaantood waxa arkay image-ka ugu xun ee aad arki kartid waxa weeye hooyo qaawan waa image-ka ugu xun ee aad arki kartid waa hooyo qaawan markaad aragtid hooyadan qaawan oo aad ku soo socotid hooyada qaawan saasay dhahaysaa sababtoo ah cawradeeda ay qarinaysaa haddana markay sii jeesato ayay ogaanaysaa inay cawradeeda qaar ka tagtay markaasay saa dhahaysaa haddana markay ka sii jeesato ayay ogaanaysaa haddana cawradeeda qaar kale inuu sii dhiman yahay markaasay socodka ka lumaya oo meel ay u socoto iyo dhinaca u jeesato ay waayaysaa
waxay ahayd wax laga naxo waxay ahayd waxaan loo dul qaadan karin ayaa nagu sameeyay sidii maxamed moogo ka dhawaajiyay waa qabyaaladda haddaynu ummadda Soomaaliyeed nahay haddaynan qabyaaladda aynaan dhinac iska dhigina wallahi inaysan waxba noo shaqeyneen inaysan waxba noo shaqeyneen ee Soomaaliya aynu qabyaaladda meel iska dhigno waa ta koowaade tan labaad haddana Muqdisho aan tagay oo intaan dhadhaab joognay 240 family ayaana waxaanu siinay cunto gaadhaysa 3 bilood waxa ay ku noolaadaan 3 bilood oo ah ma siin kartid cuntada fudud sababtoo waxa laga yaabaa inay ka qurunto sababtoo talaagada ma haystaan ama cunto nafaqo badan ma siin kartid soo waxaan siin kartid waa cuntadii Soomaaliga ee caadiga loo yaqaan waa bariis iyo sonkor iyo bur iyo caano la qooshayo oo caanidada Soomaalida tiraahdo iyo waxaad siin kartaa caleen iyo sonkor intaasna siday 3 bilood ugu sii noolaadaan 240 kaasaasaan ku sameynay magaalada Dhadhaab inta ku sii xigtayna waxa 220 family oo iyaguna aad u dhibaytaysna ayaanu Muqdisho ka soo ururnay xerooyinkooda waliba xerada la dhaho Taleex waxaan isugu geynay Xamar University meeshii videogaas oo anigu markaan galmada casnaayo baasha qaaday waxaan nidhi 200 family 220 family-ga waa inaan siinaa waxay ku noolaadaan muddo iyaguna 3 bilood soo saasaanu sameynay halka bani inagu dhamaanteen waynu tuurna wax kale aan soo bartay way markaan tagay wadankeena hooyo halka bani anaa iska bilaabaya dambiile ana koowa halka bani markuu igu bato ama gaariga iga buuxiyo waan ka daadiyaa ama waxaan ku qobo ama qashinba ama meeshan ku jaba guriga dad meel ba waxa laga yaabaa inuu 50 bb ka soo baxdo laakiin waxaan ogaaday hal b inuu reer qoodin karo hal maalin wadankeena hooyo waa hal b soo qof kastoo halbiyada guriga ku yaala anaa rabay ii soo uruuri inta kaliya meedin ka tuugsan karaa inta kaliya meedin weydiisan karaa idin koraale أنا إسكاب بلعبية وحلا روح بي هيسيد سوقه هذي 20 بي نقدان هذي 15 نقدان هذي 7 نقدان هذي كنت نقدان وحلا روح نقطه الحمد لله قف Soomaaliya ayuu badbaadaya sida aad u sameyn kartidna waa doonay gareyn kartaa website ka aadaan soo tagin adaa soo bixin baad website ka iska gelin kartaa 2 bi hal bi waxa awoodid oo intaas oo ummadda Soomaaliyeed badbaadayso waxaana naga ballanaa inaanu 100% wax halaale wixii naga galay aanu geeyno dhulka hooyo sababtoo ah marka anigu xagan ka baxay badana organizationada ama kuwa badan oo loo yaqaan waxay sameeyaan imisa waa inay administration fee gareena charge gareena waa inaan ka qaadanaa sababtoo organization kan iyagana hal la yaabin baabuur bay u baahan yihiin waxay u baahan yihiin logistics waxay u baahan yihiin shaqaale waxay u baahan yihiin sharciyo waxay u baahan yihiin diyaarada raacaan soo waxa soo dhan lacagtaas oo dhan waxay ka keenaan waxa adiga ka soo qaadeen ayaa laga sii goostaa laakiin anagu waxaan waxba ka goosamayno waanu sideeda ayay tahay ayaanu gacanta uga geenaynaa sababtoo cid kale inuu kuma aaminayno ee annaga geenayna soo dhamaanteena waxa hadda riwaayadda soo socota oo marro inoo bilaaban doonta waxay ka turjumi doontaa si qaar kamid ah hay'adaha Soomaaliyeed ama hay'adaha aan Soomaalida ahayn ee gargaarka ee ka shaqeeya wadankeena iyo xuduudda Soomaaliya sida ula dhaqmaan dadka sida ula dhaqmaan waa waxa aad looga naxo hooyo dhimanayso oo gaajoonaysa ayaa silig horteeda ay taagan tahay siliga markay taagan tahay siliga dabadiisa cuntiyo biyaad yaalla laakiin dhinaca kale siligay taagan tahay ama nin Soomaaliya oo naxariistii 10 sano ka hor ka guurtay ama habar ay 50 sano ka guurtay oo 30 kiilo la eg ayaa meesha taagan markay soo istaagto waxay dhahaysaa may laba cisho ka bacdi ugu soo noqo laba cisho ka bacdi soo noqonaysa laba cisho ka bacdi hadana lagu dhahayaa 5 cisho ka bacdi soo noqo waxa lagu ciyaarayaa kubad waa la iska kala laadeen dhinaci doona laga maraya oo wax laga naxo waa ummadii Soomaaliyeed waxa sameynayaan waxay ku sameynayaan ummadoodii kale oo Soomaaliyeed laakiin se yaa bedeli kara inteena maskaxda fresh ka leh sababtoo marka dhex gashid meeshaas lacag waa shaydaan oo wax kale aan soo bartay hay'adahan marka lacag loo dhiibo waxay ilaawaan wixii loo soo diray sababtoo lacag marka darto waxa dhahaysaa warniyo ilaahay u baa ii jeeday maan xogaa xagan marsado xagan in yarna iska geeyo anigu markaan baash lacagta bixinayay sidana u xun yihiin markaan bixinayay cuntada 7 ay yimid 7 waxay wateen sawirro iyo kamerooyin waxay ugu dhaheen cuntada aanu bixinaysid ma duuban kartaa waxaan ku yiri walaalo waayo maxaad u duubanaysaa waxay ugu dhaheen dadkii lacagta noo soo dhiibtay ayaanu tusaynaa inaanu cunto bixinay markaasaan ku yiri adigu cunteen ma bixinaysaa anaa bixinay xagee wax u wadaa seetiin idinka aqliga idinka tagay markaasay dhaheen warniyo waana kuwa oo meeshay degan yihiin dad baana soo wakiishay hadda la murantidna adaa ku cusub wadanka qoryana way wataan soo afkaaga iyo akhlaaqdaada waa inaad doortaa xitaa haddii kaa khaldan yihiin waa inaad iska dul qaadataa markaasay dhaheen waa inaad saas samaysaa ana waxaan ku yiri may ma samayn karo sidaas soo sidaas ayay dad badan u dhaqmaan
waqtiga oo nagu yar anoo wax badan in warbixin lahaa laakiin wuxuu dhan insha Allah iyo lacagtii meesha ku baxday iyo rasiidadeedii wuxuu website-ka anti-tribalism movement ama kacdoonka soo horjeedka qabyaaladda ayay ku jiraan sida aad noo taageerteen oo aad sukayga garab taagteen ma aanan qaban lahayn la'aantiin waxaanu idinka baryaynaa ummadda Soomaaliyeed haddaynu rabno inaynu badbaadino dadkeena iyo dalkeena iyo diinteena intaba dhulka yaala ee dusha lagaga taagan yahay waa inay inaga naga timaadaa waa inay naga timaadaa videogaas markuu dhamaaday wuxuu ku dhamaaday famous quote oo dhahay Nelson Mandela wuxuu dhahay be the change you want to see be the change you want to see in your country we have to be the change it have to come from us no don't rely on anyone don't rely on TFG don't rely on anyone don't rely on Sheikh don't rely on nobody it have to come from us and if we want to make and to make that change hooyada Soomaaliyeed waa inay qabyaaladda kala dagaalantaa koo horta nafteeda iyaduna ay iska tirtirtaa oo iska clean garaysaa labo seriskeeda saddex dadka village-ka la degan ama area-da la degan ama town-ka saddexna waa inay afarna waa inay ummadda Soomaaliyeed dhan waa inay meel kasta kala dagaalantaa soo qabyaaladda aanu la dagaalano ummadda Soomaaliyeed waa halka ayna dhigay anaguna waxaan u taaganahay dhamaantiina waxaan rabnaa inaan taageertaan waqtiga dhow iyo waqtiga soo socda aad iyo aad baa mahadsantihiin si fiican ay dhageysateen waa mahadsantihiin تعليتا إدليسد ما هاينات أباريو دوبادا كواستان أو ماتي تدكينيو أرليدا إدي سوغاي حدمات أوكسان دونتان ديبو إيجي دونتان أفعاو تريسان hadmaad ogsan doontaan dib u eegi doontaan facaa u daraysaa